أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدبا. أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدبا. رفاقي أصبحوا أبدا بجنبي، أقصد الكتب، أحادثهم نعيش معا، كنوزي تزحم الشهبا، كنوزي تزحم الشهبا. أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدبا. أحب كنوز مكتبتي ولو صغرت ولا عجبا، عن المخطوطة الأولى سلوا أجدادي العربا، سلوا أجدادي العربا. أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدبا. الحمد لله العظيم الشان، الذي أنزل القرآن رحمة للعباد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى وحانو بلابنيو دروس في تعليم اللغة العربية، عشرة صابصا برشاد اللغة العربية. إن شاء الله تعالى cashiradan waxaan usoo bandhigi doonaa si oo ma aragta qof walba oo la qabsan karo, yar iyo weyn, ma aragtay arday iyo qof aan arday ahayn. ما أركتي دروس في تعليم اللغة العربية إن شاء الله الله صعدة سي واضح أو فصيح أيان إن شاء الله تعالى إذن كسو قد بين دونا إنتانا بلابين 10 كيني كوبات أو دروستان يعشردان اللغة العربية، وحان جعلها إنان كهد له سيكوبا فضلك هي مهمة إلادها اللغة العربية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون الكرام، لقد عربي ولقد الله سبحانه وتعالى أدورتي سيدي أنقطة لقد الدين وقوم أركتي دنبيسه الشريعة الإسلامية سيدي أنقطة سيد لقد عربي أيها الله دورتي سبحانه وتعالى سيدا أي أنقطة لقدي أو كهد لي أفضل الأنبياء والرسل. نبي هذا متك أجو فضل بدن، نبي هذا متك أجو قيمة بدن، بل إسكدا في مخلوقات كأو إذل نك أجو فضل بدن أجو قيمة بدن لقديسي أي نقطة اللغة العربية. ما أركتي وحال لقد عربي الشرف هي أمان وغفلا الله سبحانه وتعالى وحكسو دجيي القرآن الكريم. قرآن كريم كان أفضل الكتب وحو الله سو دجيي وكتبه متك وفضل بدن وكوبنان بدن وحبه سنكتجين أيو الله سبحانه وتعالى ودورتي لقداسي إنه نقضوا اللغة العربية. الله سبحانه وتعالى وحو يري إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وحان كيالني قرآن كاني قرآن أو لقديس أيتهي عربي سده سبب لعلكم تعقلون سداد أفهمتان ووحد أقرتان ويا. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الشعراء سدا سوكل وحو كتل مامي لقدان إنو دورتي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وحا قرآن كان لسو دادكتي ملك الجبريل أو أها أمين
amiinul waxyi ahaa ayaa soo degay qur-aanka soo dejiyey wuxuuna ku soo dejiyey calaa qalbika litakuuna min almundiriin qalbigaada ayuu ku soo dejiyey si aad u noqotid dadka diga oo ma aragtay ummadii halaawdo oo waddadii saxneed ka beerto u hanuunisid ayaa lagugu soo dejiyey weeye maxaa qur-aanka lagu soo dejiyey biayi luqa bilisaanin carabiyin mubiin luqo oo carabi ah oo weliba cad oo wax caddaynayso ayaa lagu soo dejiyey luqadda carabiga ayuha alikhwa asxaabtii taabiciintii a'immadii wanaagsanaayeen kaanuu yatakalamuuna bihadihi alluqa waxay ku hadli jireen luqadan ayay ku hadli jireen luqadan marka maadaama allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu doortay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo u doortay luqadda oo ku hadlaaya inay tahay luqa carabi waxaa lagama maarmaan ah qof walboo muslim ah in uu daneeyo oo barto oo ku hadlo oo isticmaalo oo ku cizoobo oo ku sharafoobo ayaa loogu talagalay sababtoo ah cizadeena iyo sharafteena waxay ahaatay allah subxaanahu watacaala inaan ku xirnaano cizadeena iyo sharafteena waxay ahaatay diinteena inaan ku dhaqanno cizadeena iyo sharafteena waxay ahaatay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inaan raacno walaalayaal marka qofka uma dhadhamaayo haddii luqo kale oo iskaaga mashquulo oo luqadii oo diinta ahayd luqadii oo luqatulmuslimiin ahayd hadduu oo ka mashquulo yaah wax kale iyo hool kale macnaha oo ka mashquulo oo hoolo kale isku mashquulo diintii oo allah subxaanahu watacaala oo doortay oo ma aragtay kaaga dhigay kugu sharfay yaah ma aragtay si fiican kuguma dhadhamaayo adigoo saas uga qadsan haddaad dhimatid oo ma aragtay horumarkaas iyo fahamkaas haddaad dhimatid macnaha qofka nasiibkiis marka walaalayaal waxaan isku boorinaynaa sagiiran wa kabiiran qof yar iyo qof weynba dumar rag iyo dumarba barashada luqadda carabiga ayaan isku boorinaynaa macnaha marka daneeya oo ku dadaala oo ma aragtay qofkii ma aragtay ama cajalad ma aragtay ka dhagayso ama maxaan ku irahdaayay culumo oo hortag ama iskuul u gal ama jaamacad u gal yaanan luqadaas lagaaga ma aragta horumarin oo hana isdibdhigin weeye insha allahu tacaala duruustan iyadoo kitaabna waa la heli doonaa qof walba macnaha ma aragtay faa'iidada soo u faa'iidaysto oo faa'iidada u guud noqoto cashiradana wuxuu noqon doonaa cashiro aan adkayn cashiro xul ah oo gaaban oo ma aragtay cad ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala cashiradaasna waxaa soo diyaariyey anigoo ah caamir axmed mayow ma aragtay jazaakum allahu khayran maanta insha allahu muqadimadaas kadib waxaan qaadan doonaa cashirkii ugu horeeyey oo duruustan cashiradan ka mid ah ayaan qaadan doonaa ayuha alikhwa marka insha allahu tacaala si wuxuu noogu socon doonaa musalsal ah oo daba xiriir ah oona qofka uu ku fahmi karo waxaana samaynaynaa sida tarbiyada iyo culummada tarbiyada ay dhigahayaan shayga markii la baranayo waxaa laga bilaabaa waxa fudud kadib ayaa loo imaadaa waxa adag waxaa laga bilaabaa min asahli ila asacbi ay dhaheen markii wax dadka la baraayo insha allah cashiradeena sidaas ayuu ku tilmaamoobayaa cashiro fudud ayaan ku bilaabi doonaa kadib ayaa cashiradii adkaa ayaan gadaal ka keeni doonaa sidaasoo kale cashiradan luqadda carabiga duruusun fi tacliimi alluga alcarabiya wuxuu ku soocmi doonaa qayb walba oo carabiga in aan ku sheegno macnaha sidaa ogsoon tihiin carabiga culuumteedu waa culuum badan weeyaan culuumadana way ku dadaaleen fii ma aragtay laga soo bilaabo xilligii asxaabta laga soo bilaabo ilaa xilligan aan taagannahay culummadu way ku dadaaleen sababtoo ah diintoodii waay diinta ilaahay oo u talagalo qofka oo arintoo adduunyada kuu keensada ah inaa ilaahay caabudid aada fahamtid diintaas naftigeeda weeyaan luqadda carabiga lagu soo dejiyey marka qofka inuu daneeyo oo ma aragtay ku dadaalo weeyaan culummada marka saasay u daneeyeen ilaa 12 fanni waayo luqadda carabiga 12 qayb oo culuum ah weeyaan marka insha allah waxaan samaynaynaa duruustan luqadda carabiga ah
waxaan samaynaynaa qayb ayaan u bixin doonaa si guud cashiradan waxaas la baranayo oo dhan waa ku jiri doonaan insha Allah ta'ala marka la socosho wanaagsan. أحلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن. عشر كوبات الدرس الأول 10 كوبات أيان قادنينا 10 كوبات waxaa laga bilaabaa حروف اللغة العربية أما waxaa loo yaqaano حروف الهجاء وحروفta afka carabiga حروفتان markii la bilaabayo ay luqa af walbo ama luqa walbo waxaa qoodi loo bilaabaa qofka xuruufta ugu horeeya oo alifbeetada la dhaho xuruufta marka alifbeetada waxaa la dhahaa xuruuful hijaa xuruuful luqa alcarabiya ayaa la dhahaa xuruuftaasi ayaan baranaynaa xaraf ayaan u qaadan doonaa إن شاء الله تعالى. أحلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن. 10 كوبات الدرس الأول وحكوسها في سنة هي 10 كان مانتا حروف اللغة العربية حروف الهجاء يكوسها في سنة هي حروف تاسي آوي الحروف الهجائية وحواي حروف تان أني أقرن دونه وما أرك تقف كنه asaaska markuu bilaaw yahay waxa fiican inuu dugsiga iyo meesha uu ka soo baranayo in oo ma aragta soo barto oo macalinka si fiican ugu xiriiro anaga hadda tusaale baan ka bixinayna xarafka koobaad waa alif ba ta tha jim ha kha dal ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها يا حروف تاس وحالة لها مقعودة الحروف الهجائية أما حروف اللغة العربية أيها لها حروف تان مركا حروف تان سومالي ذا قاركود نون تان أي ديب ديغانو ميم نون هذا أي سهر مريان ها واو يا لكن مركي عربت أولفيريو سيدان ويان نون واو ها يا هذا إيادا يا أسكوح سومالي ذا قاركود نوحي كدرين لام ألف أي كدرين sababtoo ah aliftan ayaa hamza laga dhigaa marka الحروف الهجائية waa xuruuftan weeye أحلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن نعم كيفية نطقها sidee loogu dhawaaqayaa xuruuftan macnaha hadda waan aqriyay laakiin dhawaaqi iyadoo qoran ayaa loo baahan yahay waxaa la rabaa xuruuftaas qaabka loogu dhawaaqayo qaab saxa inay noqoto way xuruuftan oo lagu dhawaaqayo waa kuwana waxa ugu horeeya alif saasa loogu dhawaaqaa alif alif ba ba ta ta tha tha jim jim ha ha ها ها معهن ها dadka qaarkood ugu dhawaaqaan waa ha kha kha dal dal ذال ذال را 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 زاي زاي ماشي زا را يزاوى زاي سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء 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 iyo taada way kala duwan yihiin qaabka loogu dhawaaqayo طاء ظاء ظاء xogaa carabka ayaa la soo bixinaya ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام 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 لام
saasaa loogu dhawaaqa xarafka. miim miim, nuun nuun, haa haa, waaw waaw. wow ma ahan, soomaalida qaarkood markay ku dhawaaqayaan yantiquuna biwaaw, biwow. wow marka waa qalad, waaw ayaa loogu dhawaaqayaa, haa waaw yaa. xuruuftan marka waxaa waaye xuruuftii alifaxmaalaha ama xuruuf alhijaa'iya. kayfiyatu nutqihaa, sida loogu dhawaaqayo. kayfiya waa qaab, kayfiyatu nutqihaa, sida loogu dhawaaqayo wey. marka insha allahu makhaarij ulxuruuf marka laga sheekeynayo ayaa si fiican ugu baran doontaan xarafka sida loogu dhawaaqayo. xaraf walba culummadu waa dadaaleen, meel oo kasoo baxo ayay u sameeyeen, macnaha way tilmaameen meesha oo kasoo baxo, ama xabadka ama dhuunta ama afka ama fururyaha, sidaas ayay u kala dejiyeen. marka intaas ayaan waxaan u gaabsanaynaa kayfiyatu nutqiha. أحلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن. xuruuftan marka waxaa la dhahaa hadihi الحروف hiya 28 حرفا تكتب من اليمين إلى اليسار بعكس اللغة الإنجليزية. هذه الحروف حروفتان oo aan soo baranay oo horay aad ku soo qaadatay hiya 28 حرفا waa 28 xaraf weeye. hiya 28 حرفا haddaad xisaabisid xuruuftii hadda aan soo marnay waa 28 xaraf weeye. 28 kaas xaraf ayaa waxay ka koobmatay luqadda carabiga. xuruuftaas ayaa waxay dhisayso erey. ereyga carabiga ayaa dhismanayo marka. xuruufta marka ay dhisto wax dhisto waa 28 xarfan, waa 28 xaraf weeye. تكتب xuruuftaasi waxaa loo qoraa min alyamiin ila alyasaar. waxaa loo qoraa dhinaca midig ayaa laga soo bilaabaa ilaa bidix ayaa loo soo wadaa. oo qofka markuu istaago ama wax qorayo dhinaca midig ayuu kasoo bilaabayaa xarafka carabiga ah. wuxuu ku imaanayaa ila alyasaar, ilaa bidixda ayuu ku imaanayaayo qaybta bidixda ayuu usoo qorayaa. saan midigoo ka bilaaba bidixuu usoo qoraya. saasaa marka carabiga loo qoraa ereyga. hiya 28 xarfan tuktabu min alyamiini ila alyasaari, laakiin bicagsi lugati alinjiliisiya. luqadda ingiriiska opposite ayuu ku yahay, way iska soo horjeedaan. oo ingiriiska waxaa loo bilaabaa bidix, waxaa loo wadaa midig ayaa loo wadaa. dhinaca bidixaa laga bilaabayaa, dhinaca midig ayaa loo wadayaa. laakiin alluqa alcarabiya erayadeeda waxaa laga soo bilaabayaa dhinaca midig, waxaa la keenayaa dhinaca bidix. marka xuruuftaas 28 kaas ah qaabka loogu dhawaaqayo waxaa aad loo rabaa si fiican in ma aragtay loogu dhawaaqo, oo qofka uusan ka gudbin cashirkan ilaa xuruuftaas dhawaaqooda iyo qaabka loo qorayo oo sugan weyn. أحلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن. qaybtan waxaan ku qaadanaynaa markaan ka baxnay xuruufta luqadda carabiga. markaan ka baxnay meeshaan waxaan qaadanaynaa xarakaad waxa la dhaho. xarakaadka luqadda carabigu shaqalaha oo leeyahay 2 qaybood ayaa loo qaybiyaa. macnaha sida luqadaha kale oo looga sheekeeyo xuruufta la dhaho markii alifbeetada la qoro, faawalka ama kuwa shaqalka ah sida gooni loogu bixiyo, xuruufta kalena gooni loogu bixiyo. carabiga shaqaladiisa 2 qayb waa. shaqalka carabiga fuulayo waa 2 qaybood. xuruufta shaqasho wax shaqasho waxaa la dhahaa labadaas qaybood waxaa loo qaybiyaa alxarakaat alqasiira kow, iyo cashirka qaybta dambe aan ku qaadan doono alxarakaat altawiila. shaqlanayaasha labadaasaa loo qaybiyaa carabiga. waadix. alxarakaat alqasiira shaqalada gaagaaban waxa waaye erayadii hadda aad baratay oo 28 ah 28 waxaa fuulayo shaqalo gaagaaban ayaa fuulayo. alxarakaat alqasiira marka
saddex weeyaan. alxarakaatu athalath aa la dhahaa. shaqalada saddexda ah aa la dhahaa. shaqaladaas waxay yihiin lambar kow waaxid alfatxa, alkasra, addamma. saddexdaasaa fuulaha. alfatxa waa kordhig, kordhig baa fuulahaya. alkasra hoos dhig, hoos dhig baa fuulahaya. waan nii tusi doonaa hoos dhiga iyo kordhiga wuxuu yahay. addamma god, god baa fuulay. saddexdan shay ayaa lagu shaqlaa xuruuftii oo 28 ahaa. shaqal gaabankaana lagu shaqlaa. qaybta koobaad shaqalada marka tusaale ka bixi aan aragno. shaqalka waa sidee? أحلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن. tusaale ka bixino. الأمثلة example tusaalooyin. الفتحة qaabka u yaala waa kana. xariiqintan waxa ka koreeya waa mujeedaan. الفتحة kordhig. الفتحة waxaa ka mid ah مثل أسد. ereygii waa kana أسد. أسد maxaa fuulo? فتحة kordhigiyaa fuulo. alifkii hamzadii siinkina kordhigaa fuulo. أسا أسا أسد. marka ereygiiyo fuulay aliftii waa kana oo kordhig fuulay. أسد. الفتحة marka kordhiga kaasaa lahaa. calaamadiisa ama qaabkiisa waa kana. مثل tusaale أسد. الكسرة hoos dhigi weeye. hoos dhiga calaamadiisana waa kan. hoos dhiga calaamadiisu waa kana. مثل tusaale إبل. إبل. إبل hoos dhigi waa. calaamadii saddexaad oo xarakaadkii iyo shaqaladii ahaa waxaa la dhahaa addamma ayaa la dhahaa. godka calaamadiisa ama qaabka u yaala waa kan. saasaa loo qoro. waa waaw yar haddaa fiirisid. waaw yar waaye. waaw oo la yareeyey. addamma aa la dhahaa. addamma mithil tusaalihiisana waa kan. udunun. 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 u godka marka dammaha la dhahaa. idan shaqalaha la saaro imise weeye? waa saddex. alfatxa sida asadun. alkasra sida ibilun. addamma sida udunun oo kale wey. kuwaana marka waxaa la dhahaa alxarakaat alqasiira. shaqalada gaaban ayaa la dhahaa. shaqalada gaaban markaan dhamaynay waxaan rabnaa wax kale inaan barano oo ah shaqal la-aan ah. markuu shaqalka saddexdaas aysan joogin wax oo ma aragtay kala aan baran rabnaa. waxaa la dhahaa waxaas as-sukuun ayaa la dhahaa. أحلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن. marka aan barano as-sukuun reebka. reebku waa shaqalka markuusan joogin waay. huwa cadamu lxaraka. reebku waxa weeye cadamu lxaraka. shaqalka ma joogo. shaqal la-aan waay. shaygii god ma saarno, kordhig ma saarno, hoos dhig ma saarno. shaqalki ma leh. kaasaa waxaa la dhahaa as-sukuun ayaa la dhahaa. reebka marka ereyga bilaawgiisa ma galo oo luqadda carabiga erey bilaaw ah oo reeban ma jiro. wuxuu galaa dhaxda iyo dhamaadka ayuu galaa. tusaale haddaan ka bixino ereyga reeban mithil shamsun. shamsun. bintun. bintun. shamsun. bintun oo kale wey. hadda fiiri shamsun xarafka reeban waa miimka. shamsun shaqal ma saarno. shamsun. kan kalena bal fiiri bintun oo gabar ah. bintun. bintun xarafka reeban waa nuunka. xarafka guduudka saaran yahay waa bintun. xarafkan marka shaqal ma saarno. as-sukuun ayaa saaran. reeb ayaa saaran. calaamadiisana waa kaasa. shamsun. bintun ayaa la dhahaa. shamsun waa qorax. bintunna waxa weeye gabar. intaas waxaan kusoo baranay waxa la dhaho alxarakaat alqasiira wasukuun. xarakaadka ama shaqalada gaagaaban iyo reebka. waxaan dhahnay shaqaladaasi waxaa la saaraa ma aragtay ereyadii 28 ahaa ayaa shaqaladan la saaraa. shaqalkoodii markaanse marka alxarakaat alqasiira kasoo baxnay
waxaan rabnaa in aan galno ama aan bilaawno qaybtii labaad ilan shaqalada carabiga ah labaa loo qaybiyaan. أحلاها لغة العربية أحلاها لغة القرآن. qaybtii labaad aan barano. qaybta labaad waxaa la dhahaa alxarakaatu tawiila aa la dhahaa. alxarakaatu tawiila shaqalada dhaadheer. alxarakaatu tawiila maxay yihiin? shaqalada dhaadheer waa maxay? hiya halaathun. shaqalada dhaadheer waa saddex. hiya halaathun saddex weeye shaqalada dhaadheer. saddexdaani waa kuwaanaa. lambarka koobaad waaxid alif. alif kaasaa ugu horeeya. alifku waa kan macnaha sida u sawiran yahay alif. midka labaad oo shaqalada dhaadheer la dhaho waxa weeye alwaaw. alwaawu waa midkii labaad waa sidaan ayuu u sawiran yahay alwaaw. midka saddexaad alyaa. shaqalada dhaadheeraa la dhahaa alyaa. waa kan qaabkiisa alyaa. saddexdaas ayaa waxaa la dhahaa shaqalada dhaadheer. saddexdii horena waxaa la dhihi jiray hee alxarakaatu alqasiira. shaqalada gaagaaban ayaa la dhihi jiray. saddexdaanna waxaa la dhahaa alxarakaatu tawiila. shaqalada dhaadheer ayaa la dhahaa. ereyga carabiga ah mar walbo shaqaladaas kama marno. ama shaqalo gaabanaa saaran ama shaqal dheerka waa saaran yahay ama way isku jiraan. ereyga labadaba waa ku jiraa. shaqal dheerana wuu ku jiraa alxarakaatu tawiila. alxarakaatu alqasiirana mar walba kama marno. marka xarakaatu alqasiira saddexdan weeyaan. alxarakaatu tawiila saddexdan weeyaan alif iyo waaw iyo saddexdan xaraf. ayuha alikhwa ayuha almushaahiduuna alkiraam waxay leeyihiin waxaa lagu magacaabaa xuruufu lmaddi ayaa la dhahaa. wayusamaa ay hadihi alxuruuf athalaatha xuruufa almaddi. saddexdan waxaa la dhahaa xuruufta wax lagu jiido ayaa la dhahaa. xuruufu lmaddi saddexdan ayaa la dhahaa sababtoo ah waxbaa lagu jiidaa oo xarafka baa lagu dheereeyaa weeye. xuruufu lmaddi saasaa loogu bixiyay. codka markii la dheereynayo saddexda codka lagu dheereeyo waa kuwaanaa hiya alif alwaaw alyaa. saddexdaas ayaa lagu dheereeyaa. waxaan qaadanaynaa marka oo cashirkeenana insha allahu uu ku gabagaboobi doonaa saddexdan xaraf mid walbo tusaalihiisa. ereyadii oo alif galay, ereyadii oo waaw galay, ereyadii oo ya galay sida loogu jiidaayo mid walba waa qaadanaynaa. waxaa noogu soo horeynayo alif ayaa noogu soo horeynayo. أحلاها لغة العربية أحلاها لغة القرآن. marka waxaan qaadanaynaa amhilatun cala almaddi bilalif. amhilatun waa tusaalooyin oo ku saabsan cala almaddi bilalifi. alif oo lagu jiidayo oo ereyga alif lagu taagayo ayaan qaadanaynaa. shaqal dheere weeyaan. ereyga koobaad waxa weeye baabun. baabun. baabun waa albaab. baabun. baabun albaab. bal ereygii aaway xarafkii wax madayo. ereygii oo shaqal dheeraha ah meey waa alifka. calaamada guduudka ah dhexda ku jiro alifkaas. baabun waa albaab. nacam. misaal labaad tusaale labaad banaatun oo gabdho ah. banaatun. banaatun. banaatun aawa xarafkii shaqal dheeraha ahaa alxarakaatu alifkii aaway dhexda ayuu ku jiraa. banaatun. banaatun. ereyga saddexaad ama tusaalaha saddexaad waxa waaye naama wuu hurday. naama alwaladu wiilkii waa hurday. naama aawa xarafkii waa kan alifka wey. naama. naama. miisaasha ugu dambeeya ama tusaalaha saddexaad waxa weeye jaa. jaa wuu imaaday. jaa wuu imaaday. jaa wuu imaaday. safarkii oo ka imaaday ama maxaafadoo ka imaaday. jaa. jaa arajulu ninkii waa imaaday. jaa xarafkii alifka ahay aaway waa kana.
marka idan waxaan qaadanay amthilatun cala almaddi bilalifi alif oo lagu jiidayo ayaan qaadanaya amthilatun waa example tusaalooyin cala almaddi bilalifi alif oo lagu taagayo ayaan qaadanaya إن شاء الله وحنا وحجو أما قيبت كحجو وحوا حلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن المد بالواو أمثلة على المد بالواو تسالوين يا إكسامبل أو كسابسن واو ديو أريجو لوجو جيدايو حرك شغل ديريه واو أيان قادنين سيدا سوكال أفر مثال يا أفر تسالة أيان قادنينا دروس 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 وعشرة دروس دروس عشرة دروس أو حرفك وحمدي حرفك شقل ديرها آوي والواو دروس ومتك جذودك لمبرك أو لحظة كجرو دروس أن ماشى أن تابني دروس عشرة دروس لما أورانك دروس وإنا عرب كذا أتكجيدا دروس عشرة سيدا سوكال فيني زهور زهور وأبحيال أبحيه زهور 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 أريق السدحات أن قادنا وحواي وجوه 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 وجيال وجوه أريق قدام بايو وحواي جسور جسور وبندوين جسور بندد واتنا جسور معناها وبيجا يبدأ يوحبال صارا سيد الله مر جسور جسور وبندوين إذن waxaa noo dhamaaday waawdii oo nagu jiidayo maxaa noo haray talam waxaa noo haray yaadu المد بالياء حلاها لغة العربية حلاها لغة القرآن أمثلة على المد بالياء مثالوين أو كسابسن يدو ياء لو جيدايو اريدي بل فيري اريدان سمين 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 وحواي واقف عينا سمين عنو قالوا كلا سمين حرفكي wax lagu jiiday aaway waa yaada samiin samiinun shaqal dheeri ma ku jira hadaan ku dhaho eraygi shaqalaha ahay ma ku jira ha yaada samiinun kuwi gaagaabnaayna waa u jeedaaba al harakaat al qasira siinki oo kor dhigan miimki oo hoos dhigan waa u jeedaa samiinun waxa ku xigo eraygi labaad aan qaadanayna waa tabiibun dhaqtar tabiibun tabiibun طبيب 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 أرجع أفراد عن قادنا وحوي مريض قفجرا مريض قفجرا الله يعافيه الله عافيه بدك جرا الله عافيه مريض وقفجرا مريض أرجع قدام بيو عن قادنا وحوي حديد بر حديد حديد وبر حديد حديد وبرر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الله سبحانه وتعالى وحو يري وحان سود الجني برتا أيان سود بأس بدنا قصرا وحبو الدلاء وحبو ما عرفتي لكن ومنافع للناس ضد كان منافع أيو هايو للديارة دهان دومهان إيه ما عرفتي الدنيا دان ودن بربو قدرات كل سعلان حديد بر عشر كان وما أنت أنكو برني حروف اللغة العربية أو لده الحروف الهجائية عشر كان أنت أيها هرتكو إيجي ما حنكو صوبرنا عشر كان ما أنت وحنكو صوبرني حروف اللغة العربية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها يا حروف تاسن كصبرنا وحان دهني هي 28 حرفا
labaatan iyo sideed xaraf waa dhinaca midig loo soo qoraayo oo dhinaca bidix lagu geynayo. waxaan kaloo soo baran xuruuftaas shaqalada la saarayo. shaqalada xuruuftaas la saarayo laba ayay u qaybsamaan. waa qaybta koowaad maxaan dhahnay waa xarakaad qasiira, shaqalada gaagaaban, fatxa kordhig, kasra hoos dhig, damma oo god ah. haddii shaqalka la waayane sukuuna la dhahaa. waxaan kaloo soo baranay alxarakaat altawiila, shaqalada dhaadheerna waan soo baranay, waa alif, waa waaw, waa yaa. haddana waxaan qaadanaynaa su-aalihii cashirkan aan soo baranay su-aalihiisa ayaan qaadanaynaa. as'ilatun waa su-aalo, cashir walba insha allah su-aalo ayuu lahaan doonaa. su-aalahaasna qofka baranayo oo la socdo waa inuu kasoo jawaabo, oo maaragta qofka ugu dhow oo isleeyahay waa yaqaanaa inuu u soco. su-aasha koobaad aan qaadanayno waxa weeye kam xuruufu lugati alcarabiya udkurhaa. xuruufta luqadda carabigu waa maxay? sheeg. kam xuruufu luga alcarabiya, xuruufta luqadda carabiga meeqa waaye, imisa waaye. kam haddaa aragtid eragaas imisa waaye. kam xuruuf allugati alcarabiya, xuruufta luqadda carabiga waa imisa. udkurhaa sheeg, macnaha meeqa waaye tiradooda, haddana qor oo sheeg. macnaha markii su-aashaan la weydiiyo laba su-aal ayay iskugu jirtaa, waa imisa iyo sheeg. su-aasha labaad maa hiya alxarakaat athalaath, saddexda shaqal oo la dhaho alxarakaat alqasiira waa maxay? maa hiya alxarakaat alqasiira, shaqalada gaagaaban oo la dhaho alxarakaat athalaath sheeg. su-aasha saddexaad waxa weeye maa huwa sukuun, raabka maxaa la dhahaa? sukuun waa maxay? sukuun maxaa laga wada? su-aasha ugu dambeeya oo cashirkeenana aan ku khatimayno waxa weeyaan maa hiya alxarakaat altawiila, shaqalada dhaadheer oo loo yaqaano xuruufu lmaddi waa maxay oo sheeg. intaan ku kulmi doono cashirkan la mid ah insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegayaa khayr iyo barwaaqo iyo insha allahu la socosho wanaagsan cashirada kale oo ku xigo iyo ma aragtay dadaal badan ayaan idinkaga tegayaa. hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.